waa boqnogoyey ummadda Soomaaliyeed teelana uma uu dhigan dalka Soomaaliyeed inuu dib u dhigo madaxweynaha golaha sare ee dowladda Jaalisiyaad waxa uu ku tilmaamay erayada khudbad qaayale oo dadweynaha Soomaalida uu jeediyay bishii January 10keedii 1972 sida aad gidigeen u xusuusan karaysaan isticmaalkii dalka haysan jiray wax alla wax uga tagay ma aynan jirin dhaqaalo waxba kama hagaagsanayn wax u diyaar garaysnaa talagal loogu talagalay in hore u kaciisa lagu dadaalo waxay ahayd caado isticmaalku inuu dadka gumaysto dagaalka uu kala dagaalamo xagga dhaqaalaha iyo xagga cilmiga iyo xagga caafimaadka intaba nacam inuu u diido tacliin dheer inay gaaraan inuu u diido xoolo badan inay yeeshaan inuusan danayn caafimaadkooda inay bataan isaga oo aan dan ka lahayn waxa weheliya inaanu ku dagaalgalno sidii aynu uga bixi lahayn wax aqoon la'aanta oo gidigeenno ma ay dhici karto inaan maalin wax ku wada baranno laakiin ilmaheenna inaynu la doonanno inay wax bartaan aynuna gaarsiino waqti ay ana isfahmi karaan oo aqoontaas ay barteen ay isku fahmi karaan oo ay ku fahmi karaan qoomiyadooda inay daafacaan